يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان. waxaa dhici karta dadka qaar inay ku arkaan mid ilaahay ka cabsada, qaar kalena ay ku arkaan mujrim, qaar kalena ay ku arkaan sidaa iyo sidaa iyo sidaa. laakiin xaqiiqadu waxay tahay adigaa naftaada cid kasta uga aqoon badan. shayga qura ee aanu ogeyn adiga mooyaane waxa weeye siru calaaqatika birabbik wa calaaqadaad rabbigaa la leedahay. yaanay ku kadinin dadka wax ammaana, yaanay se ku dhibin dadka wax liida, waayo xaqiiqadu waxay leedahay bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira. insaanku isaga naftiisa makhraati ka ah. inaad ku dhex noolaato bayna aldaacati waalmacsiya, daaca iyo macsi dhib bay leedahay, waayo garan maysid satakuunu alkhaatima, khaatimadu teebay ahaan doonta, ma daacaad ku dhiman mise macsi. ifcal idaacata ikhlaasan laa takhallusan, daacada waxaad u samaysay adigoo ilaahay weji kaga rabaa oon cid kale weji kaga doonin. waxaafid cala annafli, sunnahana ilaali taqaruban laa takaruman, adigoo ilaahay ugu dhowaanayaan cid sharaf kaga doonayn, waayo adigaa cid kasta daacada uga baahi badan. warabbuka subxaanahu haniyun canhaa, rabbigaana waa ka kaaftooya. hamigaaga ha ka dhigin sidii dadku kuu jeclaadaan, waayo dadka quluubtoodu waa mutaqallibatun, waa mid isbedbedelaysa. qad tuxibuka alyowm, waxaa dhacaysa inay maanta ku jeclaadaan, wa takrahuka qadan berrina ay ku nacaan. waliyakun hamuka kayfa yuxibuka rabu nnaar, laakiin ha noqda hamigaagu siduu kuu jeclaadaa ilaaha dadka abuuray. hadduu ilaahay ku jeclaado jacala af'idata annaasi tuxibuk, dadka quluubtoodana jacayl buu kuu gelinaya. xaaraantu weligeed xaaraan bay ahaanaysaa, xataa walow kaana aljamiicu yafcaluhu, hadday dadkao dhan sameeyaan. mabaadi'daada ha ka suulin oo ha ka tegin, waayo rabbigaa keligaabuu ku xisaabinaya. sidaa ogeed waxaad u toosnaataa sida lagu amray, laakiin ha u toosnaanayn sidaad jeceshahay. naftaada waxaad u yeeshaa wanaag kuu qarsoon oo aanu ogeynin ilaahay mooyaane cid kale, waayo maxaa yeelay sida dunuubta markaad keligaa tahay samaysa wax u halaagto, fakadalika xasanaatu alkhalawaati munjiyaat, wanaagyaalkan markaad keligaa tahay aad samaysayna waxbay badbaadisaa. laqad radya allaahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara, yaanay ku faraxti gelinin guryaha qurquruxda san iyo meelaha qurquruxda badan. maxaa yeelay faina acdama mu'tamaraati taariikhi kaana taxta ashajara, shirarkii adduunka ugu qaalisanaa waxay ka dhiceen geed hoostii. allaahumma innii fawadtu amrii ilayk, ilaahu adaan arrinkayga kuu dhiibtay. nin culammada ka midaba wuxuu yidhi innii adcu allaha fii xaajatii, ilaahay baan anigu baahidayda weydiistaa. faidaa acطaanii iyaaha farixtu maratan, markuu isiiya mar baan farxaa. waidaa lam yacطinii iyaaha, marka aanu isiininna farixtu casharaatin maraatin, 10 jeer baan farxaa. maxaa yeelay buu yidhi ta hore waa ikhtiyaarkaygii, ta labaadna waa ikhtiyaaru llaahi callaamu alghuyuubi, waa ilaahay doorashadiisa. aad waxa u qurux badan kalsoonidaad rabbigaa ku qabto, maxaa yeelay rabbigaa isagaa og, laakiinse adi waxba ma ogi. taasi waa jawaab shaafiyo aad ka bixisay hadalkaaga aad adigu tiri limaada yaxduثu dalika, arrinkaasi muxuu iigu dhacay. lianna allaha yaclam wanaxnu laa naclam, ilaahay baa aqoonta u leh, laakiinse aad waxba garan maysid. dadka qaar ka midayna noloshaada ka baxaan ambase ay soo galaan waa raxmad xagga rabbigaa ka timid. raxmaddaana garamaysid ilaa maca alwaqti, wakhtigaa ku baran weeye, waayo wakhtigiiyo sannaduhu wax badan bay beddelaan, buurahay wax ka beddelaan. fakayfa laa tubadilu shakhsiyaati albashar, sidaanay bashar markaa waxba ugu beddelaynin. haddaad ogaan lahayd ajarku ilaahay ku siinaya fidnada kadib, mabaanad taminidayn inuu ilaahay fidnada kaa qaado. wax kastoo lagaa qaaday ilaahay waa ku siinayaa, ee qadarka waxaad ku qaabishaa hadalkaaga aad leedahay alxamdu lilaahi calaa kulli xaal. salafku waxay ahaayeen kuwo isku dardaarma 3 kelmadood oo haddaa dahab lagu qiimeeyo ka qaalisanaan lahaa. kelmadda koowaad waxay ahayd qofka wanaajiya calaaqada isaga iyo rabbigii ka dhaxaysa, aslaxa allaahu maa baynahu wa bayna alkhalqi, ilaahay wuxuu ugu abaalaa inuu wanaajiyo makhluuqa kale iyo addoonka calaaqada ka dhaxaysa. talabaadii isku dardaarmi jireen waxay ahaayeen qofka wanaajiya wixii u qarsoon, aslaxa allaahu calaaniyatahu, wixii muujinayo ilaahay wanaajiya. ta saddexaadna waxay ahayd man ihtama biamri aakhiratihi, ninka aakhiradiisa ka fikira kafaahu allaahu amra dunyaahu wa aakhiratahu, ilaahay wuxuu ka kafaalo qaadaa arrinkiisa adduunya kiisa aakhira. khasaaraha adduunka ugu xun wa an takuuna aljannatu carduha asamaawaatu waalardu, jannadu inay samaawaadka iyo arlada leeg tahay, adna aad makaa ku yeelan weydo, nolosha ka faa'iidayso, maxaa yeelay waa zaadkaagii. غفر الله لي ولكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا ربي يا رحماني
صادق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا رب.